السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسر دواد المقال كله عصب مركله واني وادي ترحيا أو برتين مقالات كسابس إندها أي أرجع. كم أصحابت بيتش كان كحيل لوي قان السمضان إحنا نسوي دينا يا سؤال شقة دكتور محل وضع بيبقى دافكا وحالة سومالينا برشلات وتقانو على مدهيسنا الحمد لله أنت بدن ودي قانان ومثل كم إذا عابقة إندها كودعو تاس أو صابته بكتيريا وليبا بكتيريا وبدن أصابته وحكمنا نوع بكتيريا لو يقان ستريبتوكوكس بكتيريا داس إيش مركي جشو بدنا قفك عليس أي سكر دايو على مدى أي جر مرك قفك اسكو أركايو على مدى هاسو كم إذا قفك إن ودريمو كلا فيش وكلا ديسك صوب بحايو فيش كاس وآد أفر بدن sidoo kale markuu hurdada ka soo kaco waliba aad ugu badan tahay indhaha inay isku dhijinayso waxaana keenay indhaha inay isku dhagaan fiishkaas qoyaankaas oo baalash tinta isku dhijinayo xilliga baaritaanka kale waxyaabaha lagu arko waxa kamid ah dadka qaar in ay mataqaana baalasha hoos oo kale barar uu galo sidoo kale mar qaar xataa waxa lagu arki karaa timaha oo baalasha indhaha in laftirkooda in ay isku dhagdhagaan oo laftirkeeda ay keeni karto fiishkaas oo baalasha indhaha ku dhagayo waxyaabaha kale oo isku arki kara qofka xaaladan leh waxa kamid ah indhihi inay casaadaan ay huraan waxa laga yaabaa in hal il ku bilaabato laakiin isha kale u gudbis hadii qofku isla markiiba uu ka taxadarin marka qaar inta badan labada indha ayay kasoo wada muuqdaan hal jeer sidee loo dabiiba oo loo daaweeyo xaaladda marka dhacdo inta badan nadaafadda hadii aad ku dadaasho waxa laga yaabaa kada labada maalin ugu horeysa adoo xataa wax daawo aadan qaadan in ay sideeda kaaga dhamaato sidoo kale waxyaabaha lagu daawo waxa kamid ah goojooyin mise dhibco indhaha lagu dhibciyo noocaas antibiotic oo markaas infectionka loo dagaalamayo waxa kamid ah gentamicin, ciprofloxacin, bromfenicol goojooyin mise boomaato isugu jiro oo markaa xataa qofka goojooda uu isticmaalayo kala 4 jeer ilaa 3 jeer inta badan uu isticmaalo maalintii boomaatada xilli habeenkii uu isticmaalayo hadii xilli hore lagu bilaabo daaweynta waxa laga yaabaa labada maalin ugu horeyso ama ugu badnaa 3 maalin qofkii inuu kaga caafimaado laakiin hadii qofka uu daawada si sax u qaadan waayo waxa laga yaabaa in uu xataa ay gaarto qaybteeda madow hareeraheeda inuu cadaan u soo geliyo marka oo laga yaabo in arag shuuc ku furto marka koowaad wax araga dhibaato ma sameeyso oo qofku waxa laga yaabaa xaaladda markuu leeyahay daafkaasi fiishkaas inta hor socod marka laga soo tago badana araga saameyn kuma sameeyso xanuun meel dheerna uu leeyahay oo calaamadaha kamid tahay xaaladan oo kala daaweynteeda waxa kamid ah inuu qofka muraayada madmadow ama sunglass loo yaqaan inuu qaato laakiin marnaba hadii xaaladan ay leedahay lama rabo in indhaha iska xirto inta badan dadka qaar waxa arkay markay fiish ama xaaladan leeyihiin inay faashad iyo indhaha ku xiraan ama indhaha ay daboolaan ama hurdada ay basaan lama rabo xaaladan waxa la rabaa in hawada indhaha ay ku dhacdo badana bacteria meelaha xiran oo aad u jecel yahay marka waxa ku dadaashaa inaadan indhaha faashad isaga xirin oo caadi indhaha ay ku kala furnaadaan si hawada indhaha ugu dhacdo taas wuxuu ahaa dulmaraa xaaladan iyo habka daaweynteeda baasha isbuucan waxay tahay adiga markuu ugu dambeeyay oo xaaladan isku arag goormo hadda xaaladan isku arkan hal bil ka hor ahayd maraan isku arkay subax markaa soo kaca xaaladan alxamdulillah isla maalintaas waxaan ku dadaalnaa nadaafadana ilaa habeenka kale ugu maysan harin alxamdulillah intaas ayaa muuqaalkeen ku soo gabeynaa waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo